Asalaamu calaykum guys, ku soo dhawaada barnaamijkeena la talinta caafimaadka. Barnaamijkeena la talinta caafimaadka maanta waxa uu hadlaynaa mowduuc aad u xasaasi badan oo Soomaalida badanaa baabi'iyay. Cudur iskuma jiro waxyaabaha Soomaalida baabi'iyay waxaa ka mid ah cudurka duumada loo yaqaan ama malaria. Inta aanan u guda galin koor mowduuceena waxaan idinka codsanaynaa haddaa channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar. Haddii aad taqaan asxaab problemka ama dhibaatooyinkan ka caawadana fadlan u gudbi u share gareey. Cudurkeena maanta waxaan uga hadlaynaa malaria. Malaria maxaa la lahaa? Malaria waxaa la lahaa kelimada malaria kelimada markii malaria la kala qaado malaria waxaa laga wadaa for bad area waxaa laga keenay for air waa hawo wasakhaysan oo jirkaaga soo galaysa waxaa loo yaqaanaa malaria. Hawadaas wasakhaysan yaa noo keenaya jirkeena waxaa gudbiso waxa loo yaqaano nooc ka mid ah cayayaanada oo loo yaqaano mosquito oo female mosquito gudbinayso waxay soo qaaday qof kale oo bini'aadan jirkiisa ka soo qaaday 24 saac oo jirkeedu ku soo koraa marka growth soo sameeyo kadib wuxuu ku abuuraa jirka bini'aadanka dhexdiisa human transmission uu ku sameeyaa human-ka uu soo gudbinaa human-ka markay uu soo gudbiso human-ka waa jirna calaamadaha ka soo muuqanayo calaamadaha soo muuqanayo waxa kamid ah inuu qofka hadii surka oo xanuuno kale dhakada dambe meesha geelka iyo bini'aadanka isaga eg yihiin haduu xanuuno dhakada dambe wuxuu dareemaa qofkaas inuu qabo calaamadaha kamid ah calaamadaha malaria waa inuu qabo malaria uu dareemaa waxa kale oo kamid ah korkiisa jajabayo qandho joogto ah afkiisa xaraar noqonayo raashin isticmaali karo iyo waxyaabo la mid ah kale oo kamid ah malaria calaamadeeda inuu qofka stoolki weeyo stool bathing wayna ila raashin hadaadan cuninin afkaaga xaraar yahay kale stool bathing ka dhumayo intaas oo dhan waa calaamadaha malaria marka hadii oo surka ku xanuuno especially malaria qaybaheeda kala duwan way kala calaamad duwan yihiin hadii aan kala qaadno haduu surka ku xanuuno kale haduu surka ku xanuuno indicated waxa jira wax loo yaqaano malaria falciparum malaria afar loo qaybiyaa malaria falciparum malaria vivacis malaria oval iyo malaria malariae afartaas loo qaybiyaa waxa afartaas wax loo yaqaan plasmodium dependent plasmodium ka waxa loo qaybiyaa marka plasmodium falciparum plasmodium vivacis plasmodium oval iyo plasmodium malariae intaas loo qaybiyaa wixii sababa oo cudurkaas sababa exactly ama wax sababa waxa loo yaqaan plasmodium sababa plasmodium ka waxa soo qaaday mosquito-dan wixii uu soo gudbinay jirka bini'aadanka iyadoo formation ku soo sameynaysa jirkeeda maalmo kadib waxay ku talaalee baalkan ku talaalee markay ku talaasho cudurkii jaawa ka soo muuqana kaasna malaria way malaria marka see loo baaraa sida loo baaro kasi baarista ahaan waxa ku soo bandhigi doonaa hal clip anigoo baarayno iyo ardayda training ka sii igoo baarayna soo bandhigi doonaa insha Allah malaria daawo ma leedahay daawo way leedahay daawada guideline ee United Nations jiro waxaad ka heli kartaa wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dad weydiis waad ka helay nidaam ay u dejisaa jir nidaamkaas badan anaga ma raacno nidaamkaas waa very essential way nidaamkaas guideline kaas taa raacno waa ka guuleysan karnaa laakiin generally ahaan waxa loo daaweeyaa loo isticmaalaa in loo qaato kaniini iyo waxa loo qaadan karaa ilmaha markay yar yihiin sharoobo iyo cirbadna waa loo qaataa saddexdaas nooc oo way oo treatment ay leedahay haddaad la xiriirto dhakhtarka asaa ku warbixinayo hadba treatmentiga markaas qofka la siina asaa sheegaya asaa au qoray marka malaria see laga hortagaa prevention of malaria waxa laga hortagaa qofka bini'aadanka mar alla marka uu iska arko calaamadahan malaria waa inuu gurigiisa qiimeeyaa example hadda meel biyo fadhiista oo gurigiisa leeyahay kale waa inuu biyaas ka nadiifiyaa hadduu gurigiisa gadaashiisa meel biyo maraan bulaacad oo ku yaalo kale inuu bulaacadaas iska duugaa haddii uu guriga dariishada luuqa oo meel qashinka buuxo oo yahay dadka dhan ay qashin ku soo wada tuuraan dariska xaafadaha dariishada ay qashin soo wada ridaan meesha meel qashin fadhiistay yahay hadduu hal maalin roob yimaado isla markaa waxa ka soo dhalanaya mosquito luuq walba xaafadaada ku yaala ama gurigaaga dariska leh kuushi inaa nadiifisaan irid jiingad u sameeyo xira waxa dhahdeen luuqa nadiif hano ahaado haddii luuqa wasaq yahay gurigaaga hortiis wasaq yahay isla gurigaaga dhexdiisa nadaafad aan lahayn oo unclean oo yahay waxa imaanaya marka cudurkan malaria mosquito meesha ka dhalanayso mosquito waxay soo qaaday cudurkan qofka lagu talaale wiida kala gudbinayso guriga dhan waxay ku naqanay influenza ku naqanay ilma yar markay cudurkan u gudubto 3 jeer isku xigtadii cunug yar ku dhacdo oo sequences within 6 months wixii isku bedelay inuu qofkan ku noqdo meningitis to ku noqdo qoorgooya la dhahaa oo ileen sababta qoorgooygu noqonayso waxay tahay because of
plasmodium falciparum qofkan ku dhacay plasmodium falciparum wuxuu exactly ku dhacaa qoorta surka ku dhacaa surka markuu ku dhaco oo surkaas jirka bini'aadamka saameeyo oo surka qofka oo saameeyo qoorta oo xanuunayo haddii oo 2 mar iyo 3 mar oo cunug yar ku soo noqdo immunity-giisa daciif ah maskaxdiisa beela nerviyo dhaawaca ileen dhicaan waxaa jira loo yaqaan cerebral spinal fluid oo qaabilsan inuu protected ku sameeyo brainka dhicaankiya wuxuu noqonayaa inuu ku milmo plasmodium falciparumka hadduu ku milmo plasmodium falciparumka wuxuu soo deeyaa highly toxic waxa loo yaqaan waa malaria qabiixa dhicaan wuxuu soo deeyaa sun ah dhicaantaas wuxuu kula milmay waxyaabihii oo soo deeyaa cerebral fluid kadib wuxuu gudbaa maskaxdii unconscious noqonayso dan cunug waxa ku dhacay marka meningitis 2 mar 3 mar ku soo noqdo qofku waxa arkay meningitis soo qaba korkiis movement ma sameeynayo waa ilmaha u dhaxeeya da'da dhalmada ilmaha markaas dhasheen ilaa ay ka gaarayaan 4 jir 5 jir meelaas inta ka gaarayaan waa ilaa intaas ay ka gaarayaan arjaw waay aad u sii yihiin jirkoodu waa tacbaan waa laga ilaaliyaa marka waxa laga ilaaliyaa in ay isticmaalaan waxyaabahan aad sheegayno kale in la siiyo marka malaria saasa looga hortagaa guriga waa nadiifinay ilmaha markay yar yihiin nada u xiree baalka shabaqa ilmaha la kor saare ilmaha qol ay ku jiraan ha isku buufin dadka qaar waxay sameeyaan spray qol cunug hurdaayo waxay ku buufinayaan sunta ilmaha markay yar yihiin sunada qol ku buufisid sunta ay sanka qaataan way u baabi'i karaan haddii u baabaa ilmaha ay ka jirdaan waxa la cunugii iga jirin tacbaan cunuga aad iska dishay marka ilmaha iska laynina waxa sameeyay ilmaha markay yar yihiin baalka nadka ku daboola hadaa qolka spray ku buufinaysin ilmaha banaanka bixiya guriga dhan ka saara ama qolkaas markaas aad buufinaysin ka saara qol kale oo carafta ay soo gaareen geeya because of immunity-gooda aad daciif u ah marka intaas waxa ku soo gabagabeynayna malaria wixii sharxaad dheeri oo malaria ku saabsan ama cudur kale ku saabsan waxa ku soo sharxi doona kaliibadena soo socdo fadlan ina dhiirigeliya oo waxa idinkaga baahanaa motivation-kiina oo haddii aad kanaalkayga ku cusub tahay share saar subscribe na dheh asxaabtaan u share garee comment-iga nagu reeba mawduuca is leedahay oo ku anfaca haddii aad su'aal ka qabtid mawduucana comment-iga nagu reeb waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu